السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qofka waxaa wanaagsan markuu salaada dhameeyo oo dhaho assalaamu calaykum ma ahan dadka qaarkood markay salaada dhameeyaan waa iska ordaan. Meesha waxaa ku jira sunno ay dadka badan ay hilmaansan yihiin oo nabiga sallallahu calayhi wasallam ka sugan. Qofka waxaa fiican markuu salaada dhameeyo inuu sugo xoogaa saddex mar oo istighfaar rabbi caza wajal ka dalbado kadib uu dhaho allahumma anta salaam wa minka salaam tabarakta ya dha jalali wal ikram. xadiiska sawbaan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan ayaa taas inuu cadeynayo. saddex mar waa inuu dhahaa astaghfirullah 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 allahumma anta salaam wa minka salaam tabarakta ya dha jalali wal ikram. kadib markuu dhaho ducooyinka kale oo adkarka kale uu aqriyo sidaas ayaa wanaagsan laana istighfaartaas xikmada ku jirta ay xikmada ku jirta ayaa waxay tahay in astaghfirullah astaghfirullah saddex mar la yimaado qofka salaadiis waxbaa ku jiri kara oo taqsiir ah oo ka gaabiyay ama yani khushuuciisa ama qalbigiisa iyo ikhlaaskiisa waxbaa yani ku jiri kara oo taqsiir ka gaabin ah. lidaalika qofka markuu salaada dhameeyo astaghfirullah 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 ayo rabbi caza wajal wuxuu ka dalbanaa inuu rabbigiisa caza wajal u dambi dhaafo. sidoo kale culimadu waxay dhahaan nawaafisha iyo rawaatibta sunnooyinka salaadaha qofka markuu dhameeyo wuu dhihi karaa astaghfirullah astaghfirullah sida waajibka ah. taasaan ku dadaalan insha allah. barakum allah fiikum. assalaamu calaykum waraxmatullahi